الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد واهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم نحن بني الإسلام نمتاز بصدق وهمم لأننا خير الأمم قرآننا يجمعنا يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم أطفالنا هيا اسجدوا لواحد فرد علم لله واهب النعم طاح المطر بيد الله كسر حوية الله طاح المطر بيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. waxa weeye mu'tamarkii labaatanaad ee ay maraakiista Scandinavian-ka soo qabanqaabin jireen sanadkanna lagu qabtay Stockholm waddanka Sweden waa maalintii afraad uguna dambeysay waana muxaadaradii afraad uguna dambeysay 18 Shacbaan 1433 July 8 2012 عنوان محاضرته waxa weeye in ad-diina 'inda Allah al-Islam alla agtiisa waxa diin uu ka ah diinta islaamka oo kaliya iyo Sheikh Saeed Raage jazahu Allah khayran falyatafaddal mashkuran. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلهي وحكيري قرآن كيسة إن الدين عند الله الإسلام دين تقرأ إلهي سبحانه وتعالى وأقبل يا أرالي كيهي ودين إسلامك آياتك نوح كتل مامي إنو يري ومن يبتغي غير الإسلام دينا qofka diin aan diinta islaamka aan ahayn doorta ee dabagala ama sanan ha caabudo ama sac ha caabudo ama malaa'igta ha caabudo ama jiir ha caabudo
qofka meel kale diin u doonta aan ahayn diinta islaamka falan yuqbala minhu baa la yidhi lagama yeelayo lagamana aqbalayo waxaa loo raaciyay intaa wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aakhiro marka la tagana wuxuu ka mid yahay dadkii hoogay ee balanbalay ee beehoofay ee khasiray ilaahay qur-aanka markuu mu'miniinta ku manaysanayo wuxuu ugu tilmaamay inuu islaamkani nicmad uu yahay oo wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinnii idiin dhammeeyey cumar bin khadaab nin yahuudiya u yimi ninkii yahuudiga cumar wuxuu ku yidhi cumarow aayad kitaabkiina ku taalla hadday annaka nagu soo degto yaa macshar alyahuud haddaanu yuhuud aanu nahay maalintay soo degtay aayaddaas ciid baanu ka dhigan lahayn qaala maa hi waa maxay aayaddan buu yidhi qaala wuxuu yidhi ilaahay qur-aankiina wuxuu ku tilmaamay oo qur-aankiina wuxuu tilmaamayaa inuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diintii idiin dhammeeyo idiin buuxiyey alyawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدح الريموت أي إلهي تابطي دينتي ما أنت لما يواكو نعمتنا تمام كذبا قارسيو واللبا رالنا وحان إذن كهي إن الدين تقادتان دينتي إسلامك عمر بن الخطاب يقول والله بو يري ما أنت سودك تيوان قرانيا oo xaggay ku soo degtay waan garanayaa oo nebigu halkuu joogay waan garanayaa waxay soo degtay buu yidhi yowma jumca nebigoo carafo jooga oo awrkiisa fuushamay soo degtay buu yidhi nebigu cumar bin khataab radia allahu canhu cabdullaahi bnu mascuud wuxuu odhan jiray markaa qofka idhaahda ama ku dara wax ama wax ka dhima diinta ama idhaahda arrin cusub baan soo kordhiyey wixii ka dambeeyay aayadda wuxuu ninkaasi sheegtay inuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu khaayin uu yahay oo diintii aanu inoo soo wada gudbin waayo buu yidhi qofka hadduu dhaho ilaahay hadduu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta diintiinii baan idiin dhammeeyey uu qof kale idhahdo maya wax cusub baan hayaa u kaadiya ama ha noqoto mawlid ama ha noqoto xabaalo la ziyaarto ama ha noqoto arrimo kale wax cusub baan hayaanu nebiga aanu samayn hadduu yidhaahdo buu yidhi cabdullaahi bnu mascuud qofkaasi wuxuu ku tilmaamay nebi maxamed inuu nebi maxamed nin khaayina uu yahay waayda diintii oo dhan ayuu ilaahay qur-aan ku tilmaamay qofkana wuxuu leeyahay waxbaan hayaa ziyaadiya bal u kaadiya marka wuxuu tilmaamaya nebi maxamed inuu khiyaameeyey cabdullaahi bnu mascuudka ayaa maalin maalmaha ka mida ninay saaxiib yihiin oo saxaabiyo oo abi muusa alashcari la yidhaahdo ayaa masaajid soo galay masaajidkii buu soo galayoo wuxuu arkay dad intay is urursadeen xalaqada u fadhiya oo ninna kabiir u yahayoo uu kolba amrayo waxay sameeyaan dadkaasi dhagxaan yaryar qururux bay soo urursadeen halkan bay soo dhigteen mid baa marka odhanaya kabbiru allaha 100 mara ilaahay allahu akbar u dhahato 100 goor dhagxaantii bay qaadayaan si odhanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar markay 100kii dhammeeyaan ayuu haddana odhanaya halliluu 100 war 100 goor laa ilaaha illa allah dhaha laa ilaaha illa allah dhaha markay 100kaa dhammeeyaan ayuu haddana odhanaya subxaana allah 100 goor dhaha ninkii saxaabigahaa ayaa uu arkay xaaladdan inay tahay xaalad aanay ayagu dee cilmi u lahayn wuu iska tegey wuxuu tegey guriga cabdullaahi bnu mascuud ayuu hor fadhiistay qofka caalimkan ixtiraam buu leeyahay taqdiir buu leeyahay dee qiimuu leeyahay guriga laguma garaaco lagama soo saaro haddaad arday aad tahay dee waa inaad aadaaba aalib alcilmi aad la timaadaa aalib alcilmiga waad la timaadaa
ardaygiiba uu hor fadhiisay guriga waxa ka subxay cabdullaahi bni mascuud faqaala yaa abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaanow inii ra'aytu shayan qad ankartah waxaan arkay waxyaaba aan ka booday ayaan arkay qaala maa hu maxaad aragtay qaala ra'aytu qawman yafcaluuna kada wa kada dad baan arkay sidaa samaynayaan qaala maa yadunnuuna annahum faaciluun talo maxay isu haystaan inay samaynayaan qaala yaa abaa cabdiraxmaan inahum yacudduuna xasanaatihim waxay tirsanayaan xasanadooda xasanaadka shaqaysteen ayay tirsanayaan oo dee boqol goor buu yidhi allahu akbar boqol goor buu yidhi subxaana allah boqol goor buu yidhi laa ilaaha ila allah marka wuu qoranayaa maanta intaasoo goor baan cibaadaystay qaala awalaa qulta lahum maxaad ugu odhan weyday cudduu sayi'aatikum fawallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa inii daaminu lahum xasanaatihim maad ku tidhaahdid inay sayi'aadkooda tirsadaan wallaahi anaa ugu damaanad qaadaya inaanu xasanaadkooda ilaahay ka luminaynin masaajidkii buu markaa waxaa galay cabdullaahi bni mascuud baa galay intuu wejiga mara ku soo duuduubtay cumaamadii ayuu wejiga ku soo qariyey talathum waa dhex fadhiistay raggii buu arko allahu akbar boqol goor laa ilaaha ilaa boqol goor subxaana allah boqol goor faqaala maa antum faaciluun maxaa samaynaysaa khayr baanu samaynayna ya aba cabdiraxmaan qaala wallaahi ama anakum khayra min muxamadi wasaxbah aw faatixuuna baab adalaala laba mid bay noqonaysaa buuhi wallaahi laba miduma soo gelaysaan kow ina ka fadli badan tihiin maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii waayo maxamed sidan muu samaynin sala allahu calayhi wasalam asxaabtina dee annakaaba asxaabtiyo sidan maanu samaynin diidde albaab dalaala oo dadkii lagu lumiyo oo jahannam u jeeda ayaa furteen qaaluu yaa abaa cabdiraxmaan wallaahi maa aradnaa ilaa khayra wallaahi waxaanu doonnay khayr umaanu doonnaan damacsanayne shar umaanu jeedin qaala kaa min muriidi khayrin lam yabluga waar imise qof oo khayr doondoonaya ayaa seegay buu yidhi marka ilaahay wuxuu qur-aan ku sheegay wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diintii idiin buuxiyey sida ibna mascuud uu yidhi maa lam yakun diinan yowmaid falaysa bidiinin wixii aan maalintaa diin hayn maanta diin maaha buu yidhi wixii aan maalinta aan diin lagu tilmaamaynin oo nebiga iyo saxaabada aanay diin ku tilmaamin maalintaa maantana diin laguma tilmaamayo nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaaranayaa ilaahayga naftooda ay gacantiisa ku jirto laa yasmacu bii axad qof imaqla min haadihi اlumma oo ummaddan ka mida yahuudiyan walaa nasraaniyan ثuma yamuutu walam yu'min bi biاladii ursilt wuxuu yidhi qof imaqla ha noqdo yuhuudi ha noqdo nasraani ha noqdo ciddu doono oo aanay aaminiin buu yidhi ilaa kaana min ahli الnaar wuxuu ku dambaynayaa inuu ahli الnaar uu yahay akhrajahu muslim fii صaxiixihi nebigu marka muxuu leeyahay qof imaqla oo aan anigaya aamini cadaabta ayuu ku dambaynaya waalciyaadu biاllah nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxaa loo soo diray jin iyo insi athaqalayn wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ucطita 5 5 baa laysiiye lam yucطahunna axadu min qabli nebi aniga iga horreeyey lama siinin buu yidhi 5tii muxuu ka tiriyey markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam qaal wa kaana الnabiyu yubcaثu ilaa qowmihi nebi walba reerkiisa ayaa loo soo dari jiray anigan buu ihi wabuciثtu ila الnaasi caama dadkoo dhan ayaa lay soo diray caddaan madow soomaali carab bakistan sudaani xabashi dadka anaa laysoo wada diray buu ihi nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuu xaqiijiyo qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas dadkoo dhan baan kuusoo diray haddaad nebi maxamed aad tahay wa uuxiya ilay marka nebigu ilahay waxaad ku tidhahdaa
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به waxaa qur-aankan laygu soo dejiyey sidan idiin hanuuniyo oan idinka ilaaliyo cadaabta marka walaalayaal waxaa jirta markaa ina diina cinda allahi alislaam ha noqoto laakiin dad fara badan ayaa dariiqii islaamka seegay tuu nebi sala allahu calayhi wasalam dariiqii uu inoo qeexay uu inoo jeediyey oo dad baad arkaysaa maanta waxay caabidaan naftooda ilaahayna wuxuu yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah waar kii hawadiisa iyo shahwadiisa caabiday maaragtay buu ilaahay ku yidhi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo qofta hadduu naftiisa iyo hawadiisa iyo khariisadiisa iyo farjigiisa iyo calooshiisa ka dhammaan weydo uu ka dhammaan waayo dee waa qof caabiday shahwadiisa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah waxay nebigu markaa inoo tilmaamay inay diinta islaamka markii ay soo degtay ay ahayd diin mutakaamila oo dhan oo buuxda laakiin fii aakhiri azamaan waxyaaba far badan iska badbedelayaan oo meelo badan dadku ay ka qalloocsamayaan nin la odhan jiray xudayfa bin yamaan waynu wada naqaanaa saxaabi buu ahaa ninkani wuxuu ahaa ninkuu nebigu sala allahu calayhi wasalam sirtiisa uu ku aamini jiray sirta nebiga waxa haye ee munaafiqiinta ku saabsan xudayfa bin yamaan asaguu nebigu markuu dhintay buu yidhi qor xudayfow raggaasi haddii ay dhintaan markan dhinto ha ku tukanina cumar bin khataab markaa muxuu samayn jiray jinaasad waloo la keenaba oo saxaabada ka mid a hadda waa nin waloo saxaabiyoo dhintayba wuxuu eegi jiray xudayfa bin yamaan hadduu intuu ninka sidaa u eego uu isaga tago cumarow ka dhaqaaqi jiray ninkii markaa wuxuu yidhi nebigaan u imi wuxuu yidhi markaa kaana annaasu yas'aluuna rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam can alkhayr dadku buu yidhi nebi maxamed intay u yimaadaan ayay khayrka ka waraysan jireen mid baa nebiga u imanaya wuxuu odhan yaa rasuula allah qul lii fi lislaami kama xadiis sufyaan bin cabdillaah qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu axada bacdak wa fii riwaaya hayrak nebi ilaahayow waxaad i tustaa waad ii tilmaamtaa kelimad igu filan oo islaamka ku saamaysan oo aanan cid dambe ka waraysanin qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam qul aamantu biاllahi ثuma اstaqim waxaata ilaahay baan aaminay markaa طariiqa ku joog mid kale odhanaya yaa rasuula allah ayu اlأcmaali axabu ilى اllah wa ayu الnaasi axabu ilى اllah dadkayuu ilaahay ugu jecel yahay yaanu ugu fadli badan camal waxa la sameeya ugu fadli badan nebigu wuxuu odhanayaa أحب الأعمال إلى الله أحب الناس إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله أعمل إلهي عمل أفضل بدن قال سرور تدخله على مؤمن وعلى مسلم قف مسلم لك فرحيه وأفضل الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس dadka waxaan ugu nafci ugu wanaagsan ka dadka ugu nafci badan waxaan uga jeedaa markaa saxaabadu nebiga wuxuu yidhi xudayfa bin yamaan nebiga intay yimaadaan bay khayr ka waraysan jireen wa anna wuxuu yidhi wa kuntu as'aluhu can ishar wixii shar ah ayaa nebiga ka waraysan jiray makhaafatan an yudrikanii waxaan ka baqi jiray ka warwari jiray inuu sharkaa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay sidaanu ii soo gaadhin ayaa nebiga uga waraysan jiray buu yidhi faqultu waxaan ku idhi nebi allow faqultu nebi allow inaa kuna fi ljaahiliya ina kuna fii jaahiliyatin wa shar intii aanad noo imanin dad jaahiliin baanu ahayn sharra waanu ku dhex jiray shar badan baan ku dhex jiray fajaa'ana allahu bihada alkhayr khayrkanna ilaahay baa noo keenay khayrkan ilaahay baa noo keenay fahal bacda hada alkhayri min shar khayrkan ilaahay noo keenay
ma waxa ka dambeeya shar miyuu ka dambayn karaa shar miyuu ka dambayn karaa qaala nacam haa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qultu waxaan ku idhi wahal bacda haada shar min khayr markuu khayrkan shar ka dambeeyo sharkaana khayr kale ma ka dambayn karaa qaala nacam wa fiihi dakhan wuxuu yidhi haayo laakiin dakhan baa ku jira qultu wamaa dakhnu dakhnigiisu markaa waa maxay yacni madmadooba ku jira buu yidhi islaamku wuu idin soo gaadhayaa islaamku markuu idin soo gaadho marka wuxuu ka hadlayaa nebiga wixii ka dambeeyey wuxuu yidhi markuu islaamku idin soo gaadho dadka waxaa soo gaadhaya islaam madmadow ku jiro qultu wamaa dakhnu madmadowgaasi waa maxay qaala qawmun yahduuna bigayri hadyi illaah bigayri hadyi dad dariiqaygii midaan ahayn raacayabaa imanaya buu yidhi tacrifu minhum wa tunkir waxna waad ka fahmaysaa waad ka qaadanaysaa waxyaabo fara badanna waad diidaysaa buu yidhi qultu markaa waxaan ku idhi fahal bacda dalika alkhayr min shar khayrka madmadow ku jiro shar miyuu ka sii dambeeya bal u fiirsada waa 4 marxaladood khayr buu nebigu keenay shar baa ka dambaynaya sharka haddana khayr wax madmadow ku jira ka dambaynaya khayrka madmadow ku jira waxa ka dambaynaya shar kale qaala nacam shar baa ka dambeeya buu yidhi ducaatun ilaa abwaabi jahannam dad albaabada jahannamo taaganoo dad kale soo gala jahannam soo gala cadaabta ayaa imanaya buu yidhi man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha qofka ka dhagaysta waxa dadkan ugu yeedhayaan ugu habooqayaan ay ugu yeedhayaan ay ugu baaqayaan wuxuu yidhi waxay gelayaan albaabadaasi cadaabtay gelayaan qultu yaa rasuula allah waxaan idhi nebi ilaahayow sifhum lana dadkaaba nooga waran qaala hum min jildatina way inoo harag eegyiin buu yidhi wayatakallamuuna bialsinatina af soomaaliga ama afka aa garanaysaana waa ku hadlaysaan buu yidhi yani afkan carabiga garanaysaan isku af baa tihiin waa isu ka arag eeg tihiin isku af baynu ku hadlaynaa qultu famaa ta'murunii in adrakanii haddii arrintaasi soo gaadho maxaad igu amraysaa qaala talzam jamaacata almuslimiina wa imaamahum dadka muslimiinta ah iyo imaamkooda isdaba taag buu yidhi qultu fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam haddii aanay imaamna lahayn jamaacadna aanay lahayn ka warran qaala faactazil tilka alfiraqa kullaha jamaacooyinkan halkan taagtaagan ee mid walba caalanka taagayo uu leeyay war xaggayga u soo baydha ee dadka halkan ugu yeedhaya abwaabi jahannam ka fogow buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala walow an tacadda biasli shajaratin xataa yudrikaka almowt wa anta calaa dalik xitaa wuri hadday arrintu noqotay inaad geed jiriddii geed guntii inaad qaniintid yacni isku xidh halkaad joogtid ilaa inta malakalmowtku ku imanayo muxuu xadiiska markaa ina tusayaa wuxuu ina tusayaa waa dhab ina diina cinda allahi alislaam laakiin islaamkii saxda ahaa waa laga baydhay islaamkii saxda ahaa waa laga baydhay oo dariiqyo fara badan baynu maray dumar fara badan baa xijaabkii khafiifiyey rag fara badan baa salaaddii ka fogaaday xitaa masaa'il caqadiya asaaskii diinta ayay qaar badani wadiiqeydii ka baydheen ay dariiqeydii ka baydheen nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha ayuu inooga digay maxaynu u baahannahay markaa walaalayaal waxaynu u baahannahay markaynu leenahay ina diina cinda allahi alislaam inaynu jidkii nebigu inoo jiideeyo oo qura aynu marro ree hebel baanahay inagama saarayso nebigu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kan fii saxiixi muslim man abطa'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabu ninka camalkiisuu shaqaystay jannadiisii salaaddiisii zakadiisii ay janno gaadhsiin weyday dee reerku ka dhashay ma riixaya buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam
reeruu ka dhashay reer hebel baan ahay reer hebel baan ahay dee jannada ma gelinaysa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ka fogaada waayo nasab iyo reer hebel baan iyo qoladaasan ka dhashay iyo meeshaasan ka imiyo inama anfacayso maxayna anfacaya waxayna anfacaya ina akramakum cinda allahi atqaakum carabtii baa nebiga u timi waxay yidhaahdeen nebi muxammadow ayu nnaasi akram dadka yaa ugu fadli badan qaala atqaahum lilah qofka ugu taqwada badan qaaluu maa can hada sa'alnaak taa kamaanu waraysanin ma doonaynu taad nooga warrantin qaala fa yuusuf marka waa yuusuf ibna nabiy allah ibna nabiy allah ibna khaliil allah ibraahim marka waa yuusuf qaaluu maa can hada sa'alnaak taa kama doonaynu nooga warrantin qaala acan macaadini alcarabi tas'aluunanii war ma lafta carabtaad i weydiinaysaan yacni asalka carabta ay weydiinaysaan yaa ugu wanaagsan ugu dhaqan wanaagsan ugu fadli badan baad leedihiin qaaluu nacam qaala khiyaaruhum fi ljaahiliya idaa faqihuu waxaa ugu wanaagsan khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum dadku markay jaahiliyadda ahayn ee gaalada ahayn dadkii ugu wanaagsanoo maantan ugu wanaagsan hadday diinta bartaan haddii ay diinta ay bartaan marka qofka maxaa laga filayaa inaanu odhan reer hebel baanahay xaggaasaan ka imi waxaan gobolkaasaan ku qoranahay maa anzala allahu biha min sulطaan nebigu muxuu yidhi dacuuha fainaha muntina war way quruntay way uraysa iskaga daaya buu yidhi abu dar alkhafaari abu dar iyuu ahaa wuxuu ahaa nin reer miya abu dar alkhafaari baa ninka sheekisa dhegaysta waxaanu isu haystay inuu qofkii afaraadee muslimay inuu ahaa wuxuu yidhi abu bakr baa markaa ku weydiinaya su-aal buu wuxuu yaa abaa dar waa adigan cibaadada u go'aye intaanu islaamku ku soo gaadhin ciddaan ilaahayn ma caabudi jirtay wuxuu yidhi ha qaala nacam wuxuu yidhi sanankayga intaan caabudo subaxdii u soo kallaho ayaan hor taagnaan jiray aan u tukan jiray ilaa inta cadceeddu igu dhufanaysaan suuxayo maalin walba hadda waa caynka maalin walba ilaa intuu suuxayo cadceeddu ku dhufanayso ayaan hor taagnaan jiray sanankayga buu yidhi ninkiiba markaa nebigu u yimi ninkii wuxuu yidhi maxaa markaa abubakar baa ku yidhi oo maxaa kugu dhacay markaa wuxuu yidhi subax baan soo kallahay sidaan sanankii u caabido sanankiiyo madaxii qoyay ayaan arkay talow sanankayga yaa biyo ku shubay baan yidhi hareeraha egeegay waxaan arkay ay sii socda waxaan ku idhi markaa kalbun laa yudaaficu can nafsihi waxaan leeyahay in sanamun laa ilaahun laa yudaaficu can nafsihi ilaah aan isdifaaci karin oo ayga kaasi iska ilaalin karin ilaahay maaha maxaad samaysay buu wuxuu markaa waxaan maqlay buu yidhi nin maka ka soo baxayoo nebi isku tilmaamayo oo nebi isku sheegayaan sheekadiisa maqlay walaalkay baan diray warba oroday iga keen buu yidhi war adaa dhaankan raacayo orodo war iga keen ninka wuu soo noqday walaalkay ka warran baan ku idhi markaa ninkan wuxuu yidhi innahu ya'muru bilcadli waalixsaan ninkani wuxuu dadka faraya ina si wanaagsan loo dhaqmo ina tolka la xidhiidhiyo ayuu dadka faraya qaala faqultu maa ashfayta khaliilii waxaan doonayey iyo nabarkii igu yaalay boogtii igu yaalay maa dawaynin wuxuu yidhi waan tegey magaaladii makaan tegey cid ka garan maayo zamzamaan ag fadhiistay buu idhi zamzam ayaan ag fadhiistay ceelkii zamzam ayaan ag fadhiistay subaxdii baan biyo ka cabbaa maalin halkaasaan joogaa buu yidhi galabnimadii ayaa waxaa ii yimi nin dhallinyaro ah oo i arkay da inaan ahay nin hariiba carabta xataa marka hariibka marka qofka dee martida waa la gartaa laa tanharanna hariiban xaala qurbatihi faddahru yanharhu biاldulli waalmixani marka wuxuu yidhi ninkii baa igu yidhi alaka daar min alcaawa taxdiid ma haysataa faqultu lahu laa faqaala halumma ilay ina keen wuxuu uhi waan dabagalay guri buu igeeyey ilaa muu hadal ana lamaan hadal waan iska fadhiisanay waan seexseexdanay subaxdii waan ka lahan maalin labaadkii sidii silag halkii aanoo fadhiyay ayuu iigu yimi alaka daar meela degtay caawa ma haystaa maya halumma ilaya ina keen 3 cisho ayay sheekadu cayn ka ahayd buu yidhi abu dar
maan saddexaadkii ayuu igu yidhi war maalin walba halkan maad taagan tahay maxaad magaalada u timi faqultu lahu ataktumu canii akha alcarab ninka carabeedoo inaadeer haddaan sirtayda kuu sheegto miyaad cidhi u sheegi qaala laa qaala ji'ta ilaa hada arajul ninka maan u imi ninka maxamed la yidhaahdo ayaan u imi ninkii marka marti qaadayey wuxuu ahaa caliya bini abi aalib faqaala ana caliya bini abi aalib inakan anaa kuu geeniyey ninkani laakiin wuhi markaan dariiqa marayno haddii aan arko wax aan ka cabsado oo nebiga duraynaya waxaan iska dhigayaa nin kabta xidhanaya soco nebiga kuuma geen kara anuguya wuxuu yidhi nebigiibu markaa ii geeyey nebigii baan hor fadhiistay wa abadar nebigii markaan hor fadhiistay faqultu lahu cumta sabaaxan ya akha alcarab waar ninka carbeedow subax wanaagsan nebigii baa intuu qoslay ayaa wuxuu yidhi ina allaha abdalanii bitaxiyatin khayra min taxiyati salaantaadaa salaan ka wanaagsan ayuu ilaahay i siiyey qaala faqultu lahu waxaan ku idhi wamaa hiya taxiyatuk salaantaadu waa maxay qaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saan ku idhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhbirnii can maa anta fiih waxaanaad war ka warramaysid iga warran wuxuu ihi nebigu markaa qur-aan buu ii akhriyay waan aaminay faqaala nebigu markaa wuxuu igu yidhi idhab ilaa qowmik tolkaagii orodo tag dadkaaga dacwadda ku fidi qultu laa yaa rasuula allah wallaahi la uclinannaha calaa ru'uusihim wallaahi intan qurayshta ayaan dhakada kaga dhawaaqayaa buu yidhi qurayshta ayaan dushooda kaga dhawaaqaya inaan ashahaatay kacbadii buu is hortaagay wuxuu ihi yaa macshara quraysh waar qurayshay waar isoo eega waa la soo eegay qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana maxamadan rasuul marka afar buu tirsanaya wax u tala waxa ashahaato magaalada jooga afar buu tirsanaya raganimadiis laakiin maxay geysay inuu halkaa istaago dhado ashhadu an laa ilaaha ila allah qurayshtii way soo kaceen way garaaceen ninkii feerjilib feerka sabaaxadda wuxuu ihi anaa nafta iga sii baxayso ayaa ninba halkaa ka soo baxay qaala ataqtuluuna rajula min khifaar war ma waxaad dilaysaa nin reer khifaara wallaahi laa tu'man lakum khawaafilakum dhaan dambe oo idin ammaan helaya ma jirto dhaan dambe oo idin ammaan helaya ma jirto waayo ninkani wuxuu ka yimi qolo dhada khifaar khifaarra waa budhcad waa tuug waxay xadaan xujaajta iyo qofkii cumrada u socdayo waa budhcad wax allaale iyo subax habeen o dhan way hurdaan subax o dhan maalin o dhan way hurdaan habeenkiina waxay soo dhacaan dadka dhaamanka meelaha maraya ayay soo dhacaan marka alcabaas binu cabdilmualib wuu gartay wuxuu ninkan haddaad dishaan dee dhaan dambe oo aamin iyo noqonaya ma jiro waa inibaa ka dishan dadka wuxuu yidhi way idaayeen biyaa lagu rusheeyey meel baa leegeeyey subaxdii labaad baan soo kallahay buuhi haddana bal u fiirsan ninka ra'yigiisa halkii baan istaagay yaa macshar alquraysh hadda waa ninkii shay la karbaashay ashhadu an laa ilaaha ila allah waa lay soo kacbi waa lay garaacay haddana naftii iga sii baxaysa ay haddana waxaa soo baxay buu yidhi alcabaas bnu cabdilmualib 3 cisho ku celiyey sheekadii 3 cisho nebigii markaa wuxuu ogaaday ninkan in nin aad u madax adag uu yahay oo dee nasiixadii nebiga muu yeeline 3 cisho ku soo noqnoqday meeshii markaasuu ku yidhi yaa abaa dar ku noqo tolkaagii diinta ku soo fidi marka ma ii kaarta markayga maqashid nebigiibaa ninka u baxay nebigiibaa asna wuxuu haajiray madiina bacda zamanin tawiil ayuu ninkii soo noqday markaa nebigii ayuu u keenay 2 qabiilo khifaar wa aslam 2 reer soo muslimay 2 qabiil buu soo muslimay u keenay ayada meeshii la joogo ayaa ila ninkani aadaabtii islaamka iyo tacaaliimtii islaamka waxaasoo way dhaafeen nebigu uu ka fogaa waxay isku dhaceen bilaal waa muadinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna bilaal wuu jecel yahay bilaal marka abu dar alkhafaarina dee bilaal addoon buu weli u arkaa cabid buu arkaa addoonkii ila waa nin madow oo shalay addoon ahay addoonnimadii buu halkii uga soo qaado wuu ku qaadqaaday bilaal baa asna dee u dhiibay
ninkii baa kaa aturuddu calaya ibnati sawda war ma adoo gabadh madow ku dhashay aniga su'aal waxay igu soo celinaysaa buu ku yiri bilaal adoo gabadh madow ku dhashay adan ninka hadal igu soo celinaysaa bilaal baa intuu aamusay qaala wallahi la arfa'annaha ila rasuulillah sheekada meel aad u xun bay maraysaa anigu arrinta nabigan gaarsiinaya nabigii buu gaarsiiyay abu dhar al-ghafari baa de waxa weyn uu haysan wuxuu yiri moogtay oo nabigii buu u yimi nabigii wajigiisa caro casaaday qaal a'ayartahu bi ummi warninkan waxaad ku caydo hooyadii ma hooyadii ayaad ku cayday qaal ya rasuul marka kida nabiguna caroonayo ayuu ya rasuul allah astaghfirullah qaal innaka imru'un fiika jaahiliyya waxa kugu jira jaahilnimada kugu jirta jaahilnimadii innaka marka islaamkii waxaynu ka soo qaadnay jaahilnimadii uu nabigu ka taga ee qabiilka iyo qurunka iyo waxaas oo dhan wadatay ayaa aynu Soomaali aynu nahay ayaynu weli dabada haysanaa wada xalay waa maqlaysoona hablihii soo qortay ay yiri inan baa lay diiday because inankani qabiilka lu ka dhashay khayrkayga kamuu dhalanin aabahay wuxuu leeyahay ninka dadkan isma geeno oo ayaguna waxay degaan xagga inankuna xaggaasaynu degnaa ilaahayna wuxuu yiri inna diina cinda allahi al-islam diintu waamid qofku haduu aaminana de waa qof muslima ina qofka la meermeeriyaba maaha gaalada ayaa maanta yani way ka talaabeen ila xad cunsurinimadii way ka dagaalamaan cunsurinimadii xitaa qaarba jesus madow bay haystaan nabi madow ciise madow ayay haystaan sheekada ay ku dhacday aniga mar aan Montreal jooga markaanu Montreal aanu joog dhalinyaro mahayn waxay haydee high schooladii bay ahayd carruur baanu nahay marka waxa ii yimi inan yaroo 15 jira oo xabashiya wuxuu igu yiri ilaahay ka cabso oo wuxuu arkay de anoo 4 saacadood ku badal lugta ciyaari jiray 4 saacadoodna waxaan ciyaari jiray kubadda gacanta wasdeesa waa shifdan inta kana waa shaqayn jiray samarka inta kana iskuulka wuxuu arkay inuu dadku kubad iyo ciyaar caabudaya wax kale aan qabanaynin wuxuu war orado tago qola barta ku shireysay orado u tag waa 15 waa idma yarbaha markaa waxaan ku wari what are you talking about I'm having fun sakaydan waan enjoy garanay ciyaarahayga ma wuxuu orado soo eeg waxaan u tagay markaa qola tabliiqa oo de intii meel dhan xidheen meel dhan ay xidheenoo 15 qof ay isku yimi oo markaas dukaan yar bay sameeysanoo imaamadihii iyo de khamiiskii aswaaq suuq yar u bixiyeen suuq al-Madiina ayay sameeysanoo sidii Madiina ay u dhiseen meel yar cajiib ay sameeyeen aniga waan qiirooday markaa waxaan arkay dasiiradii nabiga garanayay waan qiirooday halkii baan isdhiibay عمامد يردن كتورة مدبر حبد كيف سيد ماشى وان خميس ولا شيء طبعا ريال دولار اللي جسينا وان حلو انت حالك لكن قاعد ما يشوفه شلبها أنا إياه كهوسية قرر مركان قارئ مركان صون نقطين كبديني وحنس كذا يو أن دعوة فيديو أنا جو السيديو عمامد حرنا دور عشان كدم بيسي أي واحد يقول صوب بحي دكان 7-11 ليرتان كصوب بحي واحد يقول صوب بحي الكاح يقول صوب بحي لبانينو عض وكنت ما هديرة أنت تاتوجز كبوحيين قالوا ما يرحل أياك أيك صعبة ويس إيجين أنا ونارك إنس إيجين ويصو عرّي رجع أرد هذا سأنا خير مدوني مكوني مانت مركب وسيد يرجع سواء خميس كون سير لابسون حسيدي مركب صباح حدي ريهر جيسة أيان وسيد دياريك ديار بهر أي عينك أوسو حيميين أيين تيجي البحر لو كرنيين أيين ذن إله بقى صون نقضي Jesus is back إله بقى النبي عيسى صون نقضي مركب ويتكنيا أنا عينك يقول سجوديا بدأ مركب ويرفع روح يجري but he's black ومذوب ولا لكن كني نبي عيسى وما يكاد كورمه كي كلا بتشيوري shut up this is 90s عطاني مذوب ولا كلا تجيبوا لي إسكام Jesus is back أيوة سيدي وسجوديا سكيتك ماشي ما كيقول طبعا عم حدين God
ilaahayow miyaad soo noqotay markaasaan ku idhi war ilaahay ma ihie afrikaan yaro soo lumay baan ahay afrikaan yaro ka yimid soomaaliya ordo cid kala doonta way iga tageen waxaan u soo qaatay sheekadan ayagii baa qaraar gaadhay inaan maanta jesus madow iyo caddaan aanan sheekadii maraynin ay tahay waa ilaah way ka tageen cunsurinimadii innakii laakiin waman yabtaqi kayra alislaami diina diinta islaamkuna waxa weeye waxayna leedahay ka fogaada markaa kow inaynu taa aynu qabanno ta labaad aynu doonayna idiin sheego islaamku waman yabtaqi kayra alislaami diina waxaa looga jeedaa systemkaynu ku noolahay inaynu bedelno maaha waajib aynu nidhaahdo canadan ku noolahay sidii qof canadian u noolaanaya ama aan nidhahdo waxaan ku noolahay sweden markaa behaviorskooda ayaan yeelanaya lama ogola islaamka waa inaad ixtiraamta oo in is-ixtiraamno oo in kala dambaynaa oo diinta islaamka aynu ixtiraamnaa maxaa ugu yar waxaa ugu yar kaba soo qaad maalan khalwada inaad gabadh gaalo ah aad meel la joogtid aad xafiis la joogtid aad la shaqaysid keliga ama guri aad kula joogtid keliga dee islaamka kama mid aha ha odhada markaa this is okay because waddanka ma caynka nidaamka waa caynka girl boyfriend bay leedahay anna nin baanay xaasa no islaamku wuxuu yidhi no waxaa ka mida dumarkan la salaamayo raggan la salaamayo waa mamnuuc waman yabtaqi kayra alislaami diina yani systemkan qof qaata ma odhanaysid waxani waa okay waa curf albalad dadkii baa waxaan ku camal falaya laa yajuus wallaahi waxaan aaminsanahay yani waxyaabo yaroo simbal haddaynu samayno inay gaalo fara badan ku ixtiraami lahaayeen markii September 11 waxaan joogay Mareykankan joogay markay dhacday marka rag fara badan oo caraba ayaa is urursaday waxay u tageen marka White House kay tageen marka waxa la yiri waxa idin la kulmaya in Hillary Clinton so maxay tii marka ay ahayd Hillary marinaya may Bush gabadhi Bush bay la kulmaysaa maxay ahayd magaceedu no tuu qabay ha soo waa gaalada iska daaya xamale adugu muslimiinta la kulantay muslimiintii marka safay istaageen marka waa ayo waa imaamadii waa dadkii ducaadaha magaalada joogay waa wixii safa la istay gabadhii marka idin way soo martay way salaantay mid marka meesha jooga ayaa gacantiisa soo fidin waayay dadka marka meesha maraya waxay doonayaan in gabadhani ixtiraamto taqdiir bay ka doonayaan recognition bay ka doonayaan how are you nice meeting you kii salaami waayey ayay soo taagtay hadda waa kii qura salaami waayey ayaa yidhi we don't shake hands with women buu ku yidhi markaasay sainta ku kala ogtay tiri what about these kuwana waayo muslimiin ma aha markaasay inta isagii soo eegtay ayay tiri I respect your principles waxaan ixtiraamaa principalka aad adigu xambaarsantahay aaminsantahay ay daacad ka ah taasaan ixtiraamaa way tiri marka raggii meesha istaxayay ee doonayay inay la ixtiraamo oo taqdiir la siiyo ciidima xaggeeda gabadhi danka may gelin ninka quray eegtay ay waqti siisay ay la hadashay waa ninkii gacanta ka laabtay waayo asagu islaamkii wuxuu u haystaa diin ahaan uma haysto wax iska bilaa macno marra masaajidkana uu muslim ku noqonayo dabadana uu ku noqonayo arrin kale waxaan ku soo gunaanadayaa sheeko yaroo fani aniga igu dhacday oo ku saabsan salaanta beri waxaanu joognay magaalada la yidhaahdo Calgary waa Canada marka waxaa laygu qoray inaan noqdo ninka Islamic studies iyo religious affairs muslimiinta ku saabsan jaamacadda u hadli kara marka xafiis bay siiyeen dhowr meelood bay geeyeen marka waan israacnay
marka waxay University of Calgary iyo State dhowr meelood bay ahayd marka ninkii meesha dadka wuxuu yidhi okay xafiis baan ku siinay laakiin waan ku soo baraadee meelahan cidda joogta hadhow si aanay odhanin qofkan waacayo marka jazakallahu khayr ma Allah yani ilaahay soo hadeeyay uu kaxeeyay nin wanaagsan baa runtii waxaan sharad ka dhigay marka waxaan ku yidhi we gonna see a lot of women dumar badan way la kulmaynaa waxaad ku tiraahdaa sici dadka dumarka ma salaamo marka judha markuu soo goornaya hi everybody this is Imam Saeed he's here as a chaplain but he doesn't shake hands with women dumarka ma salaamo intaas waa muqaddimadii waa judha la dhiibay inta loo dhiibayaa salgoni how are you nice having you here we pleased to have you waa gaalo iyo soo dhaweysay tii ugu darrada waxay tii ugu dambeysay xafiis baanu galay 4-5 xafiis ka soo horjeeday ahay waa la soo baxay hi everybody hi this is Imam Saeed he doesn't shake hands with women dumarka ma salaamo hayyak mid ilaahay ibtileeyay oo halkaa joogta oo daaqadan ka arkayo dumarkan marka cadceedu ay soo baxdo maryaha dhigta ah oo kabadha dheer xidhan ay halkaa telefoon bay ku jirtaa mar dambo arrintii sii baxayso arrintii sii dhamaanayso ayay ka soo baxday xafiiskii way soo carartay hi bitri markaasaan ku yidhi I'm sorry I don't shake hands waxba ma labaytay way qabsatay dhag way igu dhagtay anigu marka gees allaaliya geesan u dhaqaaqan garan waayo miyaan iska qabtaa waan iska riixa miyaan daaya maskaxdi marka shaak baa noqday waayo mad filayn moogtay shaak baa noqday markaasaan iska dhamaysa daba u kaadi haddaad sidaa taabatid waa mushkiladeen halkii baan istaagay sidii askari sidii guurwada halkii baan taagay dadkii meesha joogay qof hadla waa laga waayay shibtaa la wada galay waxaa laga soo qaadan waxba dhicin saaran okay marka warramo oo midka ka soo daba carartay adaba tii kala tiri how are you Imam Saeed say tiri he doesn't shake hands he hugs masalan marka waxaan uga jeedaa kusoo gunaanada sheekadaas waxaan uga jeedaa waman yabtaqi ghayra al-islam hadaynu nahno waa in islaamku ay noqotaa noo noqda waxaynu ku dhaqano haday noqoto guriga haday noqoto dabada haday noqoto dad gaala lama hadlayo oo lecture u soo jeedin maayo waxaan u soo jeedinayaa lecture dad muslimiin oo shahaadadii garanaya oo diintii garanaya oo wax walba garanaya laakiin waxay naga yara dhiman xagga muaamalada islaamku afkun maaha وعمل يا معاملة وجزاكم الله خير سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين